soo horeeyeen beeskan Baldogle ayay nooga soo horeeyeen hadaayo taliyaha sheegayay nasiibkaygu wuxuu keenay maanta saddexda iyada oo beeskan ama beeshan Baldogle waxaa lagu magacaabi jiray waagi dambe magaciisa maxaa sareeyay guto calaamataan xaashi baa lagu soo magacaabi jiray markii dambe magaciina wali laga bedelay sidii uu sitaa ayaga halkaan runtii markaan imaanayay taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed baa ugu soo dhaweeyay markaas taliyaha ciidanka cirka meel kale loo bedelay markaas laakiin nasiib maanta anagoo nool baa halkaan isu wada keenay waana taariikh waxaana taariikhdii runtii dib ugu noqon maayo ciidanka darab oo hadda ciidanka cirkana waxaan rajaynaynaa inuu yimaado ama difaaca cirka waa sidii oo awalba u deganaan jiray waad arkaysaan meeshaan garoonka diyaaradaha waa garoon ciidanka cirka Soomaaliyeed loo dhisay xoogga dalka Soomaaliyeed loo dhisay maanta adinka jooga nasiib waxa ku noqotay inaad tababar fiican ku qaataan waxaan inii haray oo kaliya inaad dalada kaga soo boodaan garoonkan ilaahay yakiina waxaan rajaynayaa maalmaha kamida inaad uga soo boodi doontaan runtii ciidantaas darab waxa weeye oo sharafta lahaa saraakiil xigeen iyo dablay intaba halkan waxa ay u hayeen saldhig sareegaas maxamed aadan wuxuu ka mid ahaa saraakiishii ugu horeysay oo halkan ciidankii dalabo laga soo raray hiil weyne hogaaminaysu ka mid ahaa ma uusan inii sheegin hadda laakiin qoladii kale markuu la hadlayay uu sheegay ciidanka dalab wuxuu leeyahay bilad dahab uu leeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed bilad dahab uu leeyahay qaranka shaqada ay u qabteen ama mid dagaal ha noqdo ama mid badbaadin shacabka Soomaaliyeed ha noqdo waxa weeye ciidankaas bilada leh oo magacaas leh waxa la rabaa dadkii difaaci lahaa magacaas oo dhowri lahaa intiina iyo inta kale oo aado hadda meeshan aan la joogin ayaa laga rabaa annaka wasaarad ahaan iyo talis ahaan annaka wada jirna waxaan rajaynaynaa inaanu waxaan qaban karno oo muxuu ahaato aan isku dayno inaanu qabano nasiib wanaag maanta qofkii in arkaa ummadda Soomaaliyeed hadayna aragto waxay ku farxayaan inaad dhalinyarada dalkooda difaaci lahaa waxna u qaban lahaa inaad tihiin sawirkiina markay arkaan darab cod iyo jamba waxaa lagu yaqaanaa haddaad fiirsataan iyo haddii kaleba meelihii dowlad-tusyada markii la samaynayay baarshudaha laga boodo ama socod gaada socod muxuu ahaa gaada kacayaar hala sameeyee ciidankii markay arkaan ummadda Soomaaliyeed u kici jirtay madax iyo shacabba intaba u kici jirtay adinkana sidoo kale aan rajaynayaa inaad noqotaan kuwii markii la ina arko shacabkiina uu u kaco muuqaalkiina uga kaco waxqabadkiinana uga kaco waxa weeye maanta waxaan hortaala kulligeen oo weliba adinku dhalinyaradii u awtihiin xoogga dalka Soomaaliyeed markii ciidanka la samaynayo kala saraynta kala horeynta yaa ma taqaanaa ciidamada dhulka markii la tilmaamayo waxaa marka hore la siinayaa ciidanka darab waa waxa weeye number 1 way number 2 ciidan kale number 3 laakiin waxa jireen meesha koowaad baa jireen ama numberka koowaad baa jireen markii ciidamada category ama muxuu ahaa ran ahaan loo fiirinayo marka warkayaan ku soo dheeraanin waxaa la ka rabaa inaad adkaysataan waajibkiina diyaar u noqotaan markastaba waxaa runtii aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa runtii dadkii nagala qayb qaatay ama ka qayb qaatay inay ina diyaariyaan oo heerkan ina sii gaarsiiyaan oo kalsoonida ina ku beerayaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaana leenahay runtii ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed nin kasta oo wax u geysta ama nin kasta oo abaal gashada abaal bay ummadda Soomaaliyeed leedahay abaalkaasna waan u gudi doonaa haddii Allah inuu mana ilaawi doono waqtiga aad u baahan tahay qofkii ku kaalmeeya ayaa waxa weeye inaad adna xusuusato waqtiga aad muxuu ahaato aad joogto waqti kasta oo aad joogto marka waxaan rajaynayaa guul haddii uusan taliyaha ciidanka cirka uusan dhahaynin oo saldhigan madax ka ahaan jiray ya diyaaradaha baarshuudkana dadkii soo diyaarin jiray uu yahay ya diyaaradii 22 kan ku duuli jiray hadduu hadal idin leeyahay ya waa ku soo dhaweynaynaa haddii aysan ahayn waxaan ku soo gabagabeynaynaa Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha midoobo
Soomaali ha israacdo ciidanka danab ha noolaado xoogga dalka Soomaaliya ha noolaado adinkuna noolaada